inkastoo nafsigu siyaabo kala duwan qofku uu ku haleelo balse waxaan cabiri doonaa soona qaadan doonaa nafsiga laga dhaxlo jaceylka ay wadaagayaan laba qofood. qof kasta oo dunida ku nool waxa uu ogyahay in nafsigu uu yahay waxaan xanuunkiisa laga kabsan karin badi, haddana aan la qiyaasi karin waqtigu uu ku haleelayo. laakiin waxaa wadaagayaasha caashaqa xilliyada qaar ay isku dhacaan waxay isku eedeeyaan in jaceylka midba midka kale isaga uu bilaabay oo uu soo bandhigtay, taas oo muujinaysa inaan la iska wareysanaynin xaaladda xilligaasi taagan. ruuxa aad jeceshahay haddii uu kaa daldoorsado waxaad haminaysaa sida aad ku hilmaami karto ruuxaasi wakhtiga badan aad ku lumisay, taas oo caddayn u noqon karta baabi'inta taariikhda muddada dhisneed. waxa uuna ruuxaasi xilliyada qaar niyadda uu gashanayaa in qof kale niyadda uusan geli doonin, islamarkaana jaceyl wax la yidhaahdo oo idil uusan u dhowaa doonin maadaama fursaddii ama jaaniska soo maray uu iska lumiyey. allawyaan dadka la baran isha midabka aragtida waxba yaan u sii daaqulin, dumar yaan u sheekayn dhicigooda yaan furin misna danta aadmiga. ruuxa nafsiga laga galay ayaa ah mid had iyo jeer ku cataabaya ereyo muujinaya haddii aad dhuuxdo murugo iyo naxdin adduun, maxaa yeelay waxa uu rumaysan yahay in wakhtigiisa uu khasaaray. dad badan ayaa qaba in caashaqu uusan ahayn wax aan degniin lahayn, islamarkaana aan dal iyo xuduud intaba lahayn. caashaqu digbi'in male dayriyo jilaal male dawa lagu dabiibiyo dal iyo xuduud male. qof aad jeceshahay haddii uu kaa fogaado waxaa aad u adag sida aad ku hilmaamto, waayo waxaaba sahlanayn sida uu qalbigaaga uu kaga go'ayo. waxa aan ka quustay nolosha oo idil, waxaa la ii geeyey dhaqaatiir badan, waxa ay dhammaantooda ku guulaysan waayeen daweynta cudurka i hayay. sidaasi waxaa leh gabar wehel u noqotay xanuunka jaceylka. wallaahi kadib nolosheeda inay casilmato oon iftiinka nolosha dhan aanba iska iloobo oo aniga dhan iscasilo, gurigaba aan ka soo bixin, aan iska xanuunsadaan gaaray. teeda kaleento xanuun aan la daaweyn karin ayaa igu dhacay. takhtar haddii la ii geeyana oo i dhahaayo in daawo ma lahan gabadhaan, ama qur-aan saarta ama waxay micnaha nolosheeda ay doonayaan ha loo keeno, oo yacni takhtarkaba igu guubaabinayo aan soo maray. dhalinta hadda jirta ayaa u badan kuwa haasaawahooda aan xadidaysnayn, maxaa yeelay waxaa la helayaa gabar ama wiil wadaag la galay shakhsiyaad badan ballamo, wuxuuna ruuxaasi ismoodaa in uu yahay qof qiyaamo badan ama sirihiisa gaarka aan la ogaa karin. balse waxaa dhaca wakhtiyada qaar in ruuxii ku aaminay ballanta aad kaga baxday wakhtigiisana aad lumisay in maalin maalmaha ka mid ah uu ku sugi doono nafsiga, adiga oo qiranaya in nafsiga adiga aad gashay, islamarkaana eedda oo idil adiga ay ku soo fuulayso. dambarka qorayo an marnaba